abwaan xasan galay oo muddooyinka u dambeeyay xaalad caafimaad u yaallay isbitaalka gargaarka ayaa sheegay in waqtigani caafimaad qabo isla markaasina waxa ummadda Soomaaliland uga mahad celiyay ducadii fiicnayd ee ay soo direen sidoo kalena iyagana uu duceeyay inuu caafimaad iyo cimri dheer Ilaahay ku simo bismillah marka wala aad waxaan ugu salaamayaa ummadda Soomaaliland sida qiimaha iyo qaadaha badan igu ducaysay jecel igu warwaraysa ayaan u salaamayaa aniguna jacaylka ka weyn oo kii abwaanimada oo kii mid walba ayaan u hayaa waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba inaan caafimaad qabo oo aan la naaday oo maantadan insha Allah aan jecelahay inuu ka soo baxayo markaasaasan ayaan u ahayn ugu bashaareynaya dadka insha Allah inagoo nabadan isku soo bixi ilaahayna wuxuu badan nimada oo naxariisto waxa bukan Allah shaafiyo waxa bukan Allah saadiyo siyaadiyo raxmadana ilaahay noo shubo abaara ilaahay naga qaado inta baqana waan salaam baan uga dirayaa sidaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ibrahim Bulsha TV Hargeysa